madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaanu ka qabnaa awaamir cadcad in dagaalkana uu noqdo mid dawlad ahaan loo geliyay section xirka iyo qofka darawalka ah ilaa madaxweynuhu waa in si wada jira loogu jira waa dagaal saameynaya aayaha ummadda Soomaaliyeed madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed usbuucyo ayuu u hoydaa magaalada Dhuusamareeb oo uu fadhiisin ka dhigtay si uu cadawga u hujuumo una dardar geliyo ciidamada qalabka sida iyo bulshooyinka ku dhaqan geyigaana waxa laga soo socdaa dhanka ilaa Hobyo iyo Gaalkacyo iyo Wisil oo loo soo socdaa Caad iyo Camaara waxa laga baxay Cadaado oo loo kicitama xagga baxdo ilaa iyo dhanka mudugta shishe Shabeellow iyo meesha Bacadweyn la yiraahdo waxa laga soo kicitimay Guraceel oo ciidamo deegaanka ah iyo kuwa qarankuba ka soo kicitameen waxa laga soo kicitamay meesha la yiraahdo Dhuusamareeb waxa laga yimi Maxaas iyo Matabaan badankooda galcad baa laga dhaqaaqay meelaha baltilmaameedsanna waxa kamid ah Galhareeri oo degmo ah Ceelbuur oo degmo ah iyo inta kale u dhaxaysay Leediri Garabla Xiindheere deegaanada soo dhamay waa deegaano ay badan ku sugnaayeen ayaama dhow waxa lagu talin jiraa in laga xoreeyo geyiga rag iyo dumar baan habeenaya maalin seexan oo halka u hooyada kaymaha oo cadawga isku wareemaan waxa ku soo gunaanadaya military inta leeg goor la dhaqaajiyay oo Soomaali dawlad ahaan iyo dad ahaan ay u dhaqaajisay muddo dheer baa laga joogaa military inta leeg oo kumanaan kuna hadda ilaa iyo waxay kaga jiraan difaaca meesha la yiraahdo Farjana dusheeda Janay Cabdalla iyo Afmadu dusheeda ilaa iyo Ceel Bardi dusheeda ayaa lagaga jiraa يعني دجال كان بحد أوليه أنت إن هالكم فردي بل إن المسلم بلغنا نوبهنا أنت إن نمد جالسين و thousands of kilometers باليسكو هي أن من عدوك ومد الصوماليات أنت أين أنجلين أديك بالشو هرتوا إن ندلك السفينة ضد الله يستو أديك بابا جالسين كنا وحكوت شرو وزارتها أديك فدية بناء هذا النمدي عافماتك وحبرشدي ضدك مركع عدوك لقاك عيو wixii qulubtooda lagu hanan lahaa ee qaran uu qaban jiray baa la rabaa in dhammaantii wada diyaarsan adeeg bulsho iyo barnaamijka stabilization-ka la yiraahdo xasilinta halka uu ka gelayo iyo wasaaradda walba doorkii ku leedahay iska wareysanayna wasaaradda gaashaandhigga mas'uuliyiinteedii iyo taliyayaashii dhammaan aaga hore ku maqan yihiin laakiin inaha aan idinka oranaya idinkaga filan baan u maleynayaa dhulka baaxadda leh dagaalku ka socdo marka ka laga soo jeestay inta ina sugaysa waad garan kartaan